booliiska Soomaaliyeed oo ka duulaya awaamirtii taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee ahayd la dagaalanka waxyaabaha maandooriyaha ah ee ku dhex baahay bulshadeena ayaa shalay oo ahayd taariikhda 23 bisha Agoosto 2025 wuxuu gacanta ku dhigay waxyaabaha idin muuqda hortiina yaala oo ah daraagis ay bulshada Soomaaliyeed dhalinteedii ku waxyeelowday isticmaalkooda waxa lagu wadaa taramadol 17 kartoona bilibili 112 kartoona sharabo kodein ah oo 120 kartoona sida labada container bidin kaga muuqato waa daawo isla markaana waa sun daawadu waxay daawo tahay markii uu dhakhtar soo qoro daawadu waxay daawo tahay markaad isticmaasho qiyaasta lagugu talagalay waxaan jecelnahay haddaan nahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo fulinaya dhammaan xarumaha eelboorka dekeda kontaroolada laga soo galo magaalooyinka ayadoo la fulinaya amarkii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Sare Gutaasad Ismaaciil Cabdullaahi in laga bilaabo wixii hadda ka dambeeya kan cabaana talaabo laga qaadi doona midka keenana talaabo laga qaadi doona haba u darnaadeen ninka hantida inta leeg $5 milyan ka soo baxshay si uu dhalinta u dhibaateeyo